بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada arday soo dhawaada. maanta waxaynu bilaabaynaa percent. waxaynu soo marnay fractionkii oo dhan iyo decimalkii oo dhan ilaa in fiican. waa dambe waxaynu ku celin doonaa oo koobi doonaa, laakiin hadda cajalooyinkii hore ayaa kaagaga filan. kala deg YouTube, kala deg. teeda kale waa inaad qorataan. haddaad qorin aadan subscribe garayn, waxaan arkay badanaa dadka weliba Soomaalida ama subscription kama yaqaanaan. meesha inaad qorataa tiraahdaa deji. marka cashar kasta way isugu kaa xigayaan casharadu. cashar kasta ee soo baxa markiibuu ku imaanaya, adigu email kugu imaanaya, meesha kugu imaanaya. markaasaad ama YouTube-ka meesha adigu sign garaysid buu kugu imaanaya. marka casharadii kaa lumi maayaan, haddii kaloo isaga kaa dhexyaacayaan. marka hala barto subscriptionkaas. waaya percent maxaa loola jeedaa? percent ereyga ah waxaa loola jeedaa boqolkiiba intee. percentigu muxuu yahay sidiisa? percentigu waa fraction lagu saleeyay boqol. muxuu yahay percentigu? A percent is a fraction with a base of 100. A percent is a fraction with a base of 100. With a base of 100, haddaad example la fakartid markaas basekaaga hadduu 100 yahay, example la fakartid waxaa laga wadaa. For example waxaa laga wadaa 2%. number 1 aan dhahno, haddaan dhahno meel baad waxaad heshay boqolkiiba 25 boqofeel aan idhaahdo 25 over 100. waxaa loo qoraa 25 over 100 ama 17 bahasha boqolkiiba 17 over 100. maxaa loo qori karaa 8 lasi waa la dhihi karaa ilaa 90 over 100, 2 over 100. see loo akhrinayaa marka 25 ereyga percentida over 100 waa English. percentina waxaa weeyaan laatiinkiibuu ahaa. marka percento boqolkiiba wey. percento waa boqolkiiba 25 kan oo kale. boqolkiiba 25. tan oo kalena boqolkiiba 17. tan oo kalena boqolkiiba 90. tan oo kalena boqolkiiba 2. waaya marka percentigu muxuu noqday? fraction lagu saleeyay boqol. mararka qaarkood diyaar maaha xisaabtaadu, waa baran doonaa. haddaan kuu qoro hadda aan kuu qoro 23 over, haddaan ku idhaahdo 10, aan ku idhaahda ka dhig boqol ley. boqolku sale waxaa leedahay fractionkan hadda boqolkuma salaysna. hoosta waa inaa boqol ka dhigaa. hoosta boqol haddaan ka dhigo maxaa dhacaya? waxaa dhacaysa hoosta haddaan boqol ka dhigo waxaa dhacaysa hoosta haddaan boqol ka dhigo in korkuna isbedelo. hoosta boqol ooga dhigaa 10 baan ku dhufanaya. 10 aan ku dhufto ilaa 10 bay ahayd. halkaana 10 baan ku dhufanaya. qoriga hoos cadaalad baa loo baahan yahay. kor markay noqotay 230 bay noqotay boqolkiiba 230 bay ka noqotay halkaas. haddaan ku iraa ka waran aan kuu dhiibo 3 over 1000, 3 ama 30 over 1000, waxaad dhihi tan oo kalena waxaa dhahaysaa waa sahal, sababtoo ah waa inaan hoos boqol ka dhigaa. sideen boqol ooga dhigi karaa? kunkii baa waxaan u qaybinayaa 10, korna 10 hoosna 10. labadaasaan isku saarayaa. marka waxay noqonaysaa 3 over 100 waa 3 waa boqolkiiba 3. waaya aragna in percenti wixii wax walba percenti lagu salayn karo waa aragnay. hadda waxaynu u durkaynaa marka inaynu isweydiino inaynu nidhaahno percentigu wax walba percenti ma ka dhigi kartaa? exercise yar aan samayno oo ah maxaa percentigu iyo fractionku xiriirkee ayay leeyihiin aan idhaahdo. percent iyo fractionku
xiriirkee bay leeyihiin. Percentigu waa fraction haddaan niri, fraction kastaa waa inaan percentiga ka dhigi karnaa. haddaan kuu qoro 1/4 waa fraction soo ma, 1/4 haddaan kuu qoro waxaad ka dhigi kartaa percent, soo uga dhigi kartaa. waxaad ku salayn kardhaa kor waxaa ku dhufan kardhaa boqol si ay ku noqoto 25 ba hoosta boqol ka dhigi kardha, korkana waxaa ka dhigi kara 25. waan 25 ka ku dhufato weli leeg waana ku dhufataa, marka maxay noqonaysaa 25 over 100 أو 25 over 100 bay noqonaysaa. haddaan ku iraa ka waran 2 over 5 maxaa dhihi lahayd 2 over 5 haddaan ku iraa percent ka dhig xisaabtan waa fraction, percent ka dhig haddaan ku iraahdo warbaasha xisaabtan hadday percent ma ka dhigi kartaa haddaan ku iraahdo easy maxaan samaynayaa hoosna boqol baan ku dhufanayaa korna boqol baan ku dhufanayaa korna waxaan ku dhufanayaa maxaan soo boqol kuma dhufanaya sababtoo ah tani already waa 5 soo ma, marka si aan oga dhigo percent le hoostaan waxaan ku dhufanayaa 4 marka boqol bay noqonaysaa dushana waa inaan ku dhuftaa isla numberkii oo dhaha 4 waa 8 over 100. haddaad ku qanacday shay walba oo fraction ah waxaan ka dhigan karnaa boqol, hadhow hab fudud baan bari doonaa oo lagu rogo boqolka. hadda waxaan u dhaqaaqaynaa inaan dhiraahno sideeba muxuu yahay xiriir ka dhexeeya percentiga iyo fractionka. qayb baa ka aragtay muxuu yahay fractionka percentum ka dhigi kartaa, fractionka percentum ka dhigi kartaa. haa waxaynu casharka soo socda oo kan ku daba xiga hadeertaan insha Allah ku qaadan doonaa xoogaa ka bacdi sidii percentiga fraction loogu rogi lahaa, fraction kale percent loogu rogi lahaa baan leeyahay. aan ku soo celiyo percent muxuu yahay, percent waxa weeyaan boqolkiiba, boqolley weeyaan, boqolley baa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa dhijirtay boqolley, boqolkiiba intee weeyaan. percent waxaa la yiraahdaa is a fraction with a base of 100. waa fraction lagu saleeyay hoos laga dhigay boqolkiiba laga dhigay, dusha hoosta hadday boqol tahay percent way. waxa kaliya halka kaaga tagayaa markasta misaasaa loo qorayaa, loo qori maayo percent. waxaa rimaanta oo dhan boqol hoos kuma qori karnaa, maxaynu yeelaa 25%gaan 25 over 100 kan waa nugu weeyaa aan yaraysan. calaamad bay la yimaadeen, calaamadan ayaa la yimid, calaamadaas yarta ah baa loo yaqaanaa percent soo ma. 25% maxay tahay calaamadaas? calaamadaas wax kale ma akhyaaray iyo gabdhiyo wiilow marwey mudanayaal. calaamadaas waxaa weeyaan waa lagula hadlay, ma dhigi karo boqolka hoos kuma qori karo, taanaan qoranayaa. tanna say u qori lahayd, tan waxaa dhihi lahayd 8% soo maaha, waa 8 baan qori lahaa, calaamadan waa siin lahaa. maxay tahay boqolkiiba 8, boqolkiiba 8 fractionkii baan qurxiyey oo waxaan ku yiri fractionka markasta ma dhigi karo, waa iska naqaanaa boqolka inay tahay calaamad aan isla samaysano, calaamadaas ayaa la isla samaystay. marka sidaa uu ogaada fraction percent waa fraction kan boqolki oo lagu saleeyay boqolkaasna markasta lama dhigi karo, calaamad ayaa loo samaystay. qolada xisaabta waxay ku heshiiyeen, heshiis bay ka dhigteen calaamadan aan ku qoranaynahay booska boqolka, marka 8% bay noqotay. halkaas hadda joojinaya casharka ku xiga insha Allah wuxuu noqon doonaa sideeba fractionka iyo percentiga la isugu bedelaa. kan ku xiga wuxuu noqon doonaa problemska percent oo nasa looga shaqeeyo. percent aad buu u fara badan yahay, macnaha markii loo eego xisaabta in badan buu ka yahay. marka asagana waa inaynu dhinac u tuurnaa runtii. markaan sii fiiriyo xisaabaha sare ilaa calculuska wixii ka koray iyo wixii ka hooseeyo waxay isugu imaanayaan fraction intee ka taqaanaa, decimal intee ka taqaanaa, percent intee ka taqaanaa. saas isugu imaan doonta waana arki doontaa insha Allah. billahi tawfiiq.